Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada barnaamijkeena Fikir oo Hodan Noqo. Wuxuu noqon doonaa barnaamij taxane ah oo aan kaga hadli doono dad fikrado aad u yar ama fikrado basiid ah ka dhaliyay malaayiin dollar. Fadlan ku xirnow channelkeena Kuriyaal adigoo subscribe gareynaya si aad ula socoto barnaamijkan iyo barnaamijyada la midka ah ee aan soo gelin doono waqti kasta. Drop it. xalqadeena ugu horeysa maantay waxaan ku eegaynaa maxbuuskii milyaneerka noqday. qishadeena maanta waxay ku saabsan tahay Gladys Basley oo ku xidhnaa waddanka Mareykanka halkaas oo ku xukumnaa xabsi dhan 11 sano. haddaba ninkani waxa uu jeclaa ciyaarta golfiga laakiin maadaama uu jeel ku jiro fursad uma heli karin ciyaaritaankeeda balse daawashadeeda oo keliya waxa uuna ka daawan jiray telefishinka jeelka. haddaba maalin maalmaha ka mid ah iyada oo uu saaxiibkeen sugayo inuu daawado ciyaar aad u muhiim ah ayaa nasiib darro waxaa dhacday inuu roob soo da'o waana la joojiyey in ciyaartii golfiga lasii ciyaaro maadaama uu garoonkii roob ku da'ay. taasi waxay sababtay inuu xanaaqo dhaho maadaama aan maxbuus ahay xorriyadna u haysan inaan golfiga ciyaaro ayaa taas sababtay. isla markiina waxaa ku soo dhacday fikrad ah ka waran haddaad samayso ciyaarta golfiga oo lagu dul ciyaaro miis iyadoo meeshaad rabtid iyo cimiladaad rabtidna ku dheeraysid. waxa uuna go'aansaday in muddadii uga harsan xabsiga uu naqshada ciyaartan xataa shuruudaheeda uu dejiyo. markii uu ka soo baxay xabsiga waxa uu ku dhaqaaqay inuu fuliyo naqshada ciyaartan bal qiyaas waxa ay ku kacday naqshadayntii ciyaarta golfiga qiimo dhan $200. kabacdi waxa uu tusaalihii ugu soo geeyey shirkado dhowr ah waxaana u suurta gashay inuu aasaaso shirkad samaysa naqshada tan waxayna dhashay inay noqoto iibsanadeedkii ugu horreeyey inay kor u dhaafto qiimo lacageed gaaraya $50 milyan. haddaba waxaan qisada tan ka baranaynaa inaan haysano fikrado badan oon kaga faa'iidaysan karno inaan hanti iyo baraare ku gaarno. waxaana kusoo koobayaa samayso liis fikradeed laga yaabee inaad heshid fikradii noloshaada bedeli lahayd. la soco xalqadeena xigta ee barnaamijkeena Fikir oo Baraar adigoo subscribe dhahaya si aysan ku dhaafin barnaamijyadeena kale soo socda insha Allah. wabillahi tawfiiq.